السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوانا مقالكينا مانتا وعبد الله بانعمة وحنا مرتقادين داعيال wuxuuna yiri dabcan dhamaantiin waxaan idin weydiinayaa su'aal aniga martidiina ayaan ka mid ahay maanta soo ma ahan iyo sidoo kale martida walaalahayga i daawanayaan wuxuu ku yiri ma i jeceshihiin waxay ku dheheen haa waan ku jecelnahay dhamaanteena iyo kuwa TV-ga iga daawanayo idinkana ma i jeceshihiin haa ayay ku dheheen anigana Allah wuxuu marqaati iga yahay inaan idin jecelahay dhamaanteena adigana Allah ha ku jecelaado laakiin dadka way ku kala duwanaan karaan jaceylka ay qabaan laakiin waxaan idin weydiinayaa su'aal Allah ma jeceshihiin ayay wada dhaheen dhamaantiina Allah waad wada jeceshiin soo ma ahan wax khilaaf ahna kama taagno Allah ayaa idinku dhaariyay kiina Allah jecel fartiisa ha taago oo ii horjooga haddana hadalkayga maqalaya gacanta kor ha u taago jecel uu u qabo Allah dartiisa xitaa kuwa naga daawanaya TV-ga iyo kuwa ila jooga iyo kuwa shaashada ka fog intaba Allah ayaa idinku dhaariyay gacmihiina kor u taaga jecel aad u qabtaan Allah dartiisa kulligiina waad wada taagteen soo ma ahan Ilaahay khayr ha idinka siiyo hadda Allah wuxuu qulubtiina ka dhex arkaya jecelka aad u qabtaan ka hor intaydan gacmihiina taagin wax ma maqasheen waxna ma aragteen sheekhu kaamilada igu soo aadi dhamaantiina gacmaha waad wada taagteen sax soo ma ahan aniga ma taagay gacanteeda waa maya aniga ayaan idin weydiiyay oo yiri Allah ma jeceshihiin balse gacanteeda ma taagin billaah calaykum yaa ii diiday aniga waxa ii diiday isla midka adiga ku ogolaaday ma garanaysaa sababta waxaan kor ugu qaadi jiray kuna sameyn jiray macsida wuxuuna iga asturay xumaan walbo muddo sanad ilaa 2 sano ilaa 20 sano laga joogo heesaha musalsalada iyo filimada iyo wax walbo adiga hadda wali Allah waa ku caasisaa haddana wuxuu ku ogolaaday inaad gacantaada kor u qaadid jecel aad u qabto Allah dartiisa balse aniga gacmahayga uu iga qaaday muddo laga joogo 20 sano ma waxaad sugaysaa adiga inta laga mamnuucayo wali waad ku caasinaysaa Allah wali sigaar iyo maandoori ayaad cabtaa wali kama aadan suulin sida awgeeda haddana wali wuxuu idin ogolaaday inaad u taagtaan gacmaha jecel aad u qabtaan balse aniga wuu ii diiday 20 sano cawradeedana waa la iga daahiriyaa noloshaada inta suuliga aad gashay ma laga daahiriyaa aniga 20 sano cawradeeda ayaa laga dhaqaayay mana ka maarmo qof walba oo markaasi agteeda jooga qof walba waan u baahanahay hooyadeeda iyo xaaskeyga ilama socdaan haddaan musqul u baahdana inta markaasi ila joogta ayaa i wadaan igana soo nadiifiyaan haddii kale waxaan ku qasbanahay in aan sugo inta aan kaga noqonayo Jiddah ama gurigeyga ku yaalo Madiina qalbigan idin huriyay ayaa idin dhaanta in ay idin jarjarto naarta qiyaamaha wuxuu sidaas u yiri ayaa ah in daaci meesha joogay uu ka calool xumaaday hadalkiisa si naarta qalbigiina ay u jarjarin maalinta qiyaamaha Ilaahay uga mahad celiya nimcooyinkiisa si aan la idin cadaabin maalinta qiyaamaha Allah ayaan idin baryayaa inuu idin ka xarimo naarta gacanta aad kor u taagteen jecel aad Allah dartiisa aad u qabtaan way idin marqaati furi doontaa qiyaamaha inaad Allah jeceshihiin sidoo kale gacantaada ka yeelo marqaati in aad macsi walba aad iskaga dhaafaysid wuxuuna soo qaatay aayadan ku jirta suurada Yaasiin al-yawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun maanta waxaan dabooleynaa afafyaalkooda waxaana nala hadlaya gacmahooda waxaana marqaati ku furaya lugahooda oo lugahooda ayaa marqaati furaya shay ay ugu marqaati furayaan oo ay ahaan jireen oo ay kasbadeen oo ay shaqaysteen sidoo kale Cabdallah Baanicma wuxuu ka sheekiyay arin muruga badan oo isaga ku dhacday wuxuuna yiri aniga waxaan moodayay inuusan jirin qof iga daran aniga inuu joogo adduunka sababtoo ah waa curyaan wuxuuna ka dhaqaaqi karaa madaxiisa oo kaliya waxaana lagu yiri Cabdallah waxaan ku tusayaa qof adiga ka daran wuxuuna arkay nin la mid ah oo curyaan ah laakiin wuuba ka sii daran yahay isaga waayo waxba ma maqli karo mana hadli karo dhibaatadiisana ma sheegan karo wuxuu la kulmay ninkaasi arin aad u dhibaato badan qoyskiisa ayaa u soo galay waxayna arkeen dhiig badan oo ka socda waliba isagoo oynayo markii ay baareen raadkii dhiigga waxay arkeen in laba farood ay go'an tahay farahaasoo dooliga uu ka cunay wuxuu fadhiyaa meeshii uu dooliga ku cunay mana dhaqaaqi karo mana isbadbaadin karo faraha ayuu fiiriyaa wayna xanuunaan maxaa yeelay waa sida meydka oo kale wax dhaqdhaqaaq ah ma jiro aan uga xamdino rabbigeena nimcooyinkiisa alxamdulillaahi rabbil caalamiin muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.